haddana ma aragtay burciido haddana qof markuu ma aragtay keligii markuu yahay ma aragtay waa iska caadi dee meeshuu doonayuu aadi karayaa ma fahantay laakiin anigu hooyo ahay ina yar baa haystaa jarmalka maa ku dhashay abaa mise meel kale may waxaan ku dhalay wadanka Malta malkaan ku dhalay jarmalka markii lagu dhalo waa ku hadlin moogta ku hadlin waaye wuu ku siinayaa buukaasiinaha jarmalka lagu dhalo gaay meeshaana joogay talyaanigu ku waraaray xariif waaye qofto ayadana talyaanigu ku waraartay isfahmeen way ishabaysteen markii dhili rabta waagii waa la geeyey hore ase lama siin ayadii waa loo siiyey wuxuu taagay ana halaasa iga badan mutadaaday marka qaar si u kaarta baxaya burxida jaqatarnima saasay sameeyaan badii Soomaalida inta ugu badan saasay sameeyaan jarmalka markii gabadhu 8 bilood 9 bilood halkan bay keenaan marka ku hadlin waaye farta laga saaraya insha Allah anigana way siinayaan duulaha yaraha بعيد واكو تاغيرا بو مر walba waa ku daawadaa ani moogtaa runta iska sheegaa meeshaan waxaan dadka waxaan rabaa inaan wax kala faa'iino xaqiiqada jirta dhalinyarada lagu xiran iyo waxaas ogaadaan ma fahanto ayadna malaha cuna aniga history-na ilmaa waa uga baxa ma fahanto history-na waa tuso wax walba waa tuso ana u sheegay ana waxna ma qarin dadkaan balaayo yurub wax kale ka dhigaa dadka dhaa meeshaan wax kale ka dhigayaan dabcan haa runta ku sheegay talyaaniga ugu liitay Soomaali dhan yasaan lacagta lagu shaqeeyo Soomaali xildhibaanada xitaa ma qaataan horta burcid talyaaniga joogtaa soo maaha talyaaniga joogaha abay haddii lacala haddii wax igala hadlo say haddii wax igala hadli waayaan talyaaniga ma igu soo dhaweynaysaa buu talyaaniga dhulka jiraa kuu sheegaa talyaaniga jiifkiga taagtaaga ma fahat abay maana ani intaa ku soo dhaweeyo ku wado booliska ku geynaa abo isma xalin karaysid inta yar hawshii waxa sii dhamaanaya ma aragtay xabada sariirta madan iiga kacaynin intee aad ari barama saala bas meelaha aadaysa dii xoogaa laba habeen le bis fasaxay waxba aadaya waa dhamaatay aadiya ya waa ku wata insha Allah ma hadda talyaaniga sidii hore ma abaayo dadkaana wada cabsanaya ma ahane sax waay dabcan marka imaatay meel ku degto waxay ay joogtay inta boolisku ka qaabilayaan waa u baahan tahay had intii ma aragtay hawshii socoto laakiin marka tagtid waa lagu wada meel kaama lagu geynayaa kaamkaas aad joogaysa lacag saas lama qaato meesha ku xiran tahay kaam markuu qofku joogo hadhow xidaas marka sharci hesho qola project la dhahayaa qofka aan la wareegayso oo guri kaam camal guriyaha ku taqaantiin Germany camal guri kaamkaas camal lagu geynaa meeshaas marka iskuul wax lagu diraa xirfad 100 iyo kontan calaamad hadda burcid waxa la yiri meelo cusub oo wanaagsan ba hadda maxaa la yiraahdaa la furiyo dadku sheegayeenba oo 6 bilood ba sharciga lagu qaadanayo waa aba dadka ay ku waalin talyaaniga ma aragtay ma ka jiraan wax la yiraahdo wax fixed oo go'aan oo 6 bilood sharci qaadanay ani kula hadlay 3 sano igu qaad sharci talaan inaa helo waa ani kula hadlay 3 sano marka talaani joogay sharci talaani gacanta ii soo galay wiilna wuu imaada 4 bil uu ku qaato 4 bil uu ku qaato dadka qaar markay imaadaan waqti hadda fiiro anoo kale markay imaanay fara waxa lahaay oo dhowr wadan oo kala duwan waxa la isaar waxa la dhahay Dublin hatta waxay dhaheen fiilaana kugu celinayna oo ahayd wadankii kuwada aan fara dhigto haddana 6 bil kadib waa iska kay cafiyeen dadka qaar markay imaadaan waxa la saaraa Dublin dadna ma la saaraba ma haynti oo Dublin dhan ma la saara qof soo joogo warqad cafisa loo keena warqad cafis talyaani interview sa ku hesho talaan hadda mar interview marto abdi interview 2 sano kadib aan martay kadib sharci helin hadda imaatay oo hore interview ka heshana waxa macna sharciga ka qaadanay talaan marka hadda mar interview marto qof Soomaali diidmo ma siiyo talaan sharcigiisa qof Soomaali ku hadlayo meesha ku hadlayo aniga hadda waa ku sii balansaday insha Allah bismillah kareem haduu ilaahayna xaqa iga siiyana waa alxamdulillah hadii kalena talyaaniga hadda u soo saara insha Allah ma baaniyada qeyr u sheeg xaqa ka helay ilaahay talaani ma ku baahiyo hadii xaqa lagu waayo guna hadii loo beddelkiisa la helaa ma fahmin hadii dabcan taasana beenahay marka waa ku taageera boqortooyo mar walba waa ku fiirsadaa aniguna waxa rabaa inaan jirta iska dhiso teamka aan aado marka waxyaalo badan baan ma aragtay qayb markaan beachkaaga galo waxyaalo badan baan aan ka qaataa ma fahantay guriga dhexdeeda ku sameeyaa
marka walaalo maasan tahay saadii soo qabatay adigii asxaabtaada karti lahaata ma fahanto maalta igu soo carar maaha maaltada haddaa kasoo jamaadaysa yurub meel ku celinaysa male meel horta meel ii celinaysa male walahi ilaa faransiiska kasoo jabhadeeyey walahi faransiiska hataa adig may kula dheeleen aniga ilaa faransiiska ayaa waxaan ku yiri aan aadayo cabaar baan joogayo waa ila meeraystee ma fahanti meeshii aan ka yimid ee diidmada i siisayba haddana markii dambe markaa faransiiska wax walba ii dhammaadeen bayba iska soo wactantayba aan la soo celiyo diidmay bay soo siisay ya waxaa la yaabay intay diidmo waxaan kuri wejigaygaga dhuftee baa markaan kasoo tegaan kasoo danaystay faransiiska aaday oo layska kay qaabilay oo isdhahay haddaad waxaan ku yidhi aad xasilaysaa unbayba soo waxtantayba waxaan ku yidhi waxaaba la rababaynaa anigiyo boosadayda iyo inantayda yarbayna nala gaado laakiin waa ku fahnay maya sababtaa kuu sheega abaay waxay ilaalinayaan heerka dablinka jacaylkuuma dhahayaan hana loo soo celiyo dee wayba maxaa diidmaybaysi haddii qofka hadduu maalta mar uu joogana mar hadday diidmo ay ku siiso khalaas rajo kale male sida hadda wadamadan kale hadda jarmalka oo kale rajaad leedahay Itaaliya oo kale rajaad leedahay wadamada kale rajaad leedahay laakiin maalta haddii mar ay ku siiso waa khalaas rajo dhan ma lihid waa inaad iskaga soo baxdid kiiskaaga iyo hawlahaaga way laabayaan laakiin sababta ay dhahayaan hala soo celiyo wax kala ma ahan waxay ilaalinayaan xeerka dablinka tusaale aniga fiilan shaqana waa igu diideen qaxootinimana waa igu diideen wadan walbo Yurub aan tago Faransiiska inta noo soo celiyo wadan kale inta soo celiyo waraan ultima markaan dhahay meel ka dambaysa mala Talyaani waxay dhaheen noo soo celiyo haddana waxaa kaaga sii daran buridid meeshaas xeerka ilaalinayaan oo maadaama wadankii ugu horeyso faradhigata aad tahay sharcigu wuxuu qoraa asaga sharci ku leedahay wadankaas soo markii la dhaho okay ninkaan idinku soo hormaray aawe waxa uu saxan yahay noo keena ay dhahayaan no haddana waxaa kaaga daran buridid malta waa dadka inta ugu badan cunsuriin waaye waxaa laga yaabaa hadda wiilal oo reer maltays la ahayn oo faransiiska intay dhaheen la soo celiyo markay tegeen diidmo wejiga lagaga dhuftay marka waa dadka inta ugu badan maaragtay waana iska liibiyaan waaye ma fahanteen waa liibiyaan iska luuqad kale iska samaystay marka waa iska cunsuriin hadda marka waxaa jooga jarmalka jooga alxamdulilah haddii muhiim maad aragtay dad caafimaad qabtid ma aragtay oo lixdaada lixaad waxaan ku dhammaystirayaa meesha doontid baa ka dhacaysaa mugsuntahay alxamdulilah marka intii ka badnayd baa soo samarnay hadda wax yar baa noo hadhay inuu ilaahay wax khayr qaba iiga soo qaado iisoo duceeya ilmaadeerayaa gabarta ugu duceeyo oo waliba si niyada markaa salaadaha ay tukanaysiin iyo waxaas oo niyada hal raa lama rabo ducaa istustusan fahankeed insha Allah baanin oo ku soo duceynaa mar walba salaad tukado ana wada xiriireynaa insha Allah waana ku taageera warag salaamaya adiga iyo asxaabtaadaba haddii follow iska kaysiyaan oo iska jeclaan lahaa niyada ugu dhisa gabarta niyada ay dhisa soo baxay adinkana ha ku noqonina cadowga ha u kacmo cadowga ha ku noqonina ii kala kiciya waxaas oo commentiga soo qoroyo والله صابون إما يقال صابون إسكو حافظة أجرنا موقتين guys لكن إما حسوسته أنا لكن صابون حسوسته وصابون وقصاق قبر على جوا شاكرنا أنا راجع صابون إسكو حافظة أجرنا ويل كلا صابون اللي رمارت سويدن جوا إسكو حافظة أجرنا ما فهمت أصلا إما حسوسته كرا لكن مرك بكرة وكوسو دعينا إن شاء الله لك مرك إن شاء الله دولايرة كوسو قرأ علي وإسلا حريرنا حال صون قضوا قيمين